bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan walaalahayga qaaliga aan jeclahay kusoo dhawaada channelkayga dhool dhalaal cooking haddii allah awoodal uu qadaro insha allah maxaan hagaajisan doonaa maantay doolsho ayaan hagaajisanaynaa insha allah waxyaabihii aan ka sameyn lahayn ayaan halkan kusoo diyaarsanay 4 xabo oo ukun ah bakeeriga sokorta aan aadka u buuxin bakeeriga shaaha lagu cabo sidoo kale maxaan haysanaa baking powder qaadada cunada lagu cuno ayaan ka isticmaali doonaa aan aad u buuxin shukulaatada budada ah caano ayaan ku haysanaa halkaas insha allah bakeerigaas ayaan kusoo cabiray labada xab carfisa midka aad heli karto isticmaal midda qoyan ama midda budada ah labadooda hadii aadan heli karin waxaad isticmaali kartaa hayl ayaad isticmaali kartaa insha allah sidaas ula socda walaalahayga qaaliga ah haddana maxaa soo qaadanay baaquliga ayaan soo qaadanay 4 xabo ukunta ayaan kusoo shubnay waa ujeedin wali ma garaacin mashiinka aad haysato ku qaso insha allah haddii midka korontada aad haysato haddii kale birta cabitaanka lagu shiido ku qaso insha allah haddii kalena midaan gacanta aniga hadda midaan ayaan ku qasayaa insha allah sidaas ayaan ugu qasi doonaa walaalahayga qaaliga aan jeclaa maxaan idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan la socod wanaagsan insha allah channelkayga hore doorsho waan usoo geliyay haddana qaybtan kale ayaan maanta idiin wadaa insha allah shukulaatada ayaan ku dari doonaa qaybna waxaan ka dhigaynaa sida caadiga cadaanka ayaan u dayn doonaa insha allah sidaas ayaan ku wadi doonaa qasitaanka waa ujeediin ilaa ay si fiican noogu xumbayso insha allah ma ku dari doono sokorta iyo waxyaabaha kale sidaas ayaan qasitaanka ugu wadeynaa insha allah markii aan soo qaso oo si fiican usoo garaaco ayaan isku soo noqonaynaa walaalahayga qaaliga ah sidaas ila socda waa soo qasna waa kaasaa maasha allah markii sidaas ay noogu soo xumbaysay hadda maxaa ku bilaabeynaa inaan ku darno sokorta insha allah sokorta ayaan ku dareynaa insha allah waa ujeedin sokorta intaas ayaan iska reebay maasha allah adiga haddii aad jeceshahay ku badso haddii aad jeceshahayna iska yaree insha allah sokorta ayaan kusoo garaaceynaa haddana insha allah sidii oo kale markay noogu soo xumbayso ayaan waxyaabaha kale ku dareynaa sida walaalahayga qaaliga aan jeclahay sokorta inay si fiican ugu dhalaasho ayaan rabnaa insha allah keeg qurux badan oo dhadhan la inuu nooga soo baxaan rajeynaynaa haddii allah awoodda lagu qadaro hadda waan soo dhameynay sokorta waa kusoo garaacnay waxaan ku dareynaa caanihii ayaan ku darsan doonaa insha allah caanahan waa ujeediin haaf ayaan ku dar haaf kalena waa iska reebayaa insha allah haddana sidoo kale waa soo garaacayaa insha allah say u xumbeynayso waa ujeediin maasha allah tabaarakallah hadda maxaan ku darsanaynaa insha allah carfisada ayaan ku dareynaa midda qoyan ayaan ku darsanayaa labadooda ma wada isticmaali rabo furka oo buuxa ayaan ku daray maasha allah adiga qaado ku qiyaas haddii aad rabto haddana carfisada kusoo garaacayna insha allah sidaas ila socda carfisada markaa kusoo garaacna haddana waxaan ku dareynaa baking powderka ujeediin qaadada aad u buuxdo qaadada cuntada lagu cuno waa qof walba aan rajeynayaa inuu fahmi doono qiyaasta insha allah burkana maxaan ku cabiran doonaa isla bakeerigaas oo buuxa ayaan isticmaalaynaa iyo wax yar ayaan insha allah ku dari doonaa sidaas ila socda haddana intaa markii aan isku soo dhameyno insha allah burka ayaan ku bilaabi doonaa shukulaatada ayaan u dambeysiineynaa insha allah burka ayaan kusoo bilaabeynaa insha allah walaalahayga qaaliga ah qaybta u horeysa ayaan ku dareynaa insha allah si fiican inaan u garaacnaa rabnaa insha allah oo wax kuuskuusa uusan naga yeelanin saasa ku wadeynaa insha allah qaybta kale burka waan kusoo dari doonaa iyadana burka usoo dhammaystiraya insha allah hadda intaan ayaan si fiican ugu garaacayaa markii aan si fiican u garaaco insha allah ayaan isku soo noqonaynaa waa kana burka insha allah marba qayb ayaan kusoo daray hadda weli wax yar waxaan u maleysaa inuu jilcan yahay qayb kale ayaan wax yar ayaan ku darayaa insha allah si fiican ayaan u qasaysaa walaalahayga qaaliga aan jeclahay markii aan soo dhameyno waa kaasaa saasuu noogu soo baxay waa ujeediin hadda 2 qayb ayaan kasoo kala dhigay qayb baaquli kale oo yar ayaan ku shubnaa insha allah qaybta kale oo badan waxaan sameynayaa shukulaatada ayaan ku darayaa insha allah waa ujeediin shukulaatada waa kusoo daray shukulaatada haddii adiga aad jeceshahay waad ku badsan kartaa adiga iyo dooqaaga haddii kale waa ka yareysan kartaa qaybta kalena waa taasaa waa ujeediin hadda shukulaatadaas ayaan isoo dhexgelinayaa in qaybtan insha allah see kusoo baxdana waa ila arki doontiin
saan inoogu soo baxday markii aan soo dhameeyno waa kaasaa maasha Allah kalar qurux badan ay noo noqotay mana ku badanin mana ku yareynin insha Allah adiga qiyaastaada saa rabto ugu qiyaaso insha Allah saxanka ovenka aan la gelin lahayn insha Allah ayaan qaadanaynaa saliid iyo bur ayaan marin doonaa insha Allah waan ku soo shubanay si uusan kaaga dhigin saliid iyo bur fiican maasha Allah mari haddana maxaan sameynaynaa qaybta kale ayaan kusoo sharaxaynaa iga raali ahaada markaas kaamirada inay ii daarneed ayaan u maleynayay waa kaasa sidaas ayaan qaybta kale ugu soo shubay qaybta cadeed waaye insha Allah ovenka ayaan gelinaynaa 180 30 daqiiqo ayaan sugaynaa insha Allah waana la joogaynaa kor iyo hoosna waan uga shidayaa insha Allah markuu soo baxo ayaan isla arki doonaa soo ku soo baxay insha Allah tacaala maasha Allah tabaarakallah ugu dambeyn markuu foornadii ka soo baxay saas quruxda badan la ayuu noogu soo baxay waa u jeediin maasha Allah waan soo jaranay qayb kamida aad u kulul yahay haddaan ka soo saaro foornada maasha Allah burjikan ayadoo lagu sameynayo dulsha waan soo galiyay waa u jeediin labada dhinacan uu ka gudubtay maasha Allah aad uu u jilicsan yahay wuu kulul yahay maasha Allah qaybna shukulaato ayuu ka noqday qaybta dhaxdan cadaan ayuu ka noqday maasha Allah korkan waa u jeediin maasha Allah saas uu ka noqday walaalahey qaaliga aan jeclahay waxaan ku leeyahay haddii hore aan noola joogi jirtay like naga xaasidin insha Allah hana naga baqiilin walaalaha kalena u sii share garay si ay uga faa'iideystaan haddii adiga aad taqaanidna maasha Allah tabaarakallah waxaan idin leeyahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka nagu caawi insha Allah gambaleelkana sii furo si muuqaalada aysan kuu dhaafin insha Allah tacaala commentiga iyo like-ga iyo ducadan hoos noogu reeb iyo wixii tale insha Allah walaalahey qaaliga aan jeclahay maasha Allah la-aantiin abaar waaye garab istaagiina insha Allah iyo dhiirigelintiina waa noo muhiim idinkana maxaan idin leeyahay jazakallah khayr waa u jeediin saas uu noo noqday maasha Allah markii aan soo jarjarno kulli waa kaasaa inta aan ku kulmi doono muuqaalo kale sidaas iyo nabaadiin iyo nooli kulantay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh